subuskaray kasaro kambalel kafurao laygana kudabaqabo lacagka majoogay asxaabta gaarsi waxaan adi wax ku dhimin anigana waxi tara ha igala baqayline barta kulan ka gaarsi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابي سؤال وهذا أنا كأنا قفير سنيسين سجل عبدوية أنت وحيدين هيا شيء يروى إسكا فانتاستيك أو ماركتي سوينا أكسنون عضي بس سيدي لمودي أي سنقون سيدي متقنا وقروح البنيد قول عادي هو لقد لي ويلي قبل با استعلاضي عاد بإسرائيلين ولي بقبل عاد أصيد الريد ويل أسرع عادي وإسكاها ولا sheekaystay ayaa qof yahay ka waran baaliyadaan jacayl sameeyno waxba kama qabay tiri jacaylkii aniga ba mataqaana diyaar baan u ahay hadeed waa welcome meesha baa la isku bartay sheekadii sidii loo sheekaynayay oo la isku la socday oo maaragtay arintu dhin isugu ahayd ayuu yiri hameenkii dambe de saaxiib hawshaydan ana isla leh maxaa ma iijanjeeris markaasay tiri masaas baad walaalow amaad maaragtay ay dhib keentaayo ma dhib keeni maysa day dhibka yimaado iyo wix walba day yimaadana hawshu waa taydii ii yara janjeeri okay waxba kama qabay tiri saaxiibada qof wax jecel wax ma cishan karee farahay ka saartay qumbihiisa subaga ahaa buu farta darsado dhuuqay gabadhii ayada ahayd bil kadib waxaa kusoo baxay hawshii caadada ahayd oo mataqaanaa qayrka ahayd baa kusoo baxday markay kusoo baxday yay ula timid asagii wuxuu yiri heblo ayaantan caadi ma ihide waxaan ka dardareemayaa caajise maxaasika markaasay tiri walaalo waxbaa jira waxbaa dhacay hawl baa dhacday hadeed anigu waxba kaama qarin karo hadeed waxa weeye qabri iyo ninkiis lama kala qariyo hadeed urba igu soo baxay hada cidiina waxa weeye waxba looma sheegi karo hada waxaan rabaa inaa doontid oo cidii u tagtid intaan hawshaana soo weynaano uurkaana soo bixin hada walaalo siir uur maanaba hawshiisa ku jira uurku muxuu yahay uur ma jirine uurna ma jire iska daayo intii ka dambeysay markii hameenkii u sheegtay uurkii intay ka dambeysay waxay samaysay inuu mataqaanaa u gogooyo gabadhii iyo mataqaanaa uu wajiga u bedelo oo u magaciisiyeeyo oo gabadhii talaa ku cadaatay reerkoodu waa yaabeen waxay yiraahdeen gabadhan maxaa sika maxaa gabadhii ku dhacay gabadhii qalbigeedii waa dileeyahay hurdaa lagu arkahayaa waa jiiftaa gabadha shaqadiisa u qaban jirtay uma qabanayso na heblo na maxaa kugu dhacay maya hooyo waxba iguma dhicine asagii bay inta u tagtay oo dhexda marada ku xiratay bay waxay tiri dhageyso abow inaan baxo oo wadankan ka tagaan rabaa oo maaragtay aniga wadankan haddaan ka tago inaan maaragtay uurkayga iyo waxaan u tagayaa inaan uurkayga iyo waxa gabarnimadayda xumaatay iyo reerkayga aysan arag oo igu soo raacadin sidaas awgeed waxaad ii samaysaa warqad ninkaaxa ii samee waxa la yiraahdo nikaaxso cunugayga si uusan xaaraan u noqon magac iigu samee waa intaasoo beri ka maalin aduu weynaado uu ku anfaco oo cunugaan maaragtay ad ilaahay calaf mataqaanaa kugu daro ooba ilma aan asaga ahayn ba dhali weyde hadda bal warqad nikaax iigu samee waana baxayaa hadda waxaad yeeshaa walaalow mac salaama ilaa saan baad ii gashay sharaftayda adaa dilee masaasa haa okay wadaad baan kuu geynayaa wadaadka sheekh hebel ahoo magaalada qaadunka ka ahoo caalamiga ahaan baa kuu geynayaa ma waad soo sheeganaysaa maya kuma soo sheeganayo wadaadkii bay u geysay haye iska warrama way iswadatiin miyaa ma ismeersanaysin haye gabar yahay aaway aabahay ma joogo walaalkaa ma jooga maya walaalkay ma jooga gabar yahay haddaan aabahaana joogin walaalkaana joogin hadda walaayadaada yaa kuu mataqaanaa yaa kuu qaadahaya markaasay waxay leedahay shiikhow adaa aabahay oo kale adaanba mataqaanaa ku cisaartay adigaan taladayda kuu dhiibtay maadaama aabahay iyo walaalkay aysan meeshaan ka dhaweyn hadda waxaan rabaa inaa adigu walaayadayda ii qaado oo maaragtay adiga aad mas-uul uga noqoto wallahi billahi gabar fiican baa tahay adba wallahi billahi shiikow aad baad u fiican tahay waan mataqaanaa walaayadayda adaan kuu dhiibtay bas meherkaaga sheeguu yiri meherkeedii bay sheegatay meher yaroo iska ladifan oo wiilkuna isugu cararaynin waxaa la yiraahdo shiikuna uba u bogayo uu leeyahay meherku inuu saan oo kale yahay baa fiican oo saan oo la difan yahay gabar fiican baa tahay shiiko wallahi adba shiik fiican shiikii gabadhii waxay ka raadisay kaftankaasoo ah sambaatiya inay ka diyaariso oo ay ka qaadato ilaa waa wadaadkii meherinaye sawir isaga iyo ninkeeda oo isa salaamahaya
bay sawir dhac ku siisay oo tiri aad baad isugu nuuraysin wallahi billahi sawir in layda ka qaataan istaaheshaan labadiinoo isa salaamahaya labadoodii oo isa salaamaya sawir ku dhufatay yihiin waxay tiri haddana garabka isqabsada labadoodii oo garabka is haysta shiiqii iyo ninkeedii bay haddana sawir ku dhufatay waxay tiri shiikow aniga waad socdaa inakeen buu yidhi ninkii baa wuxuu yidhi markii la meheriyey gabadhii inakeen hadda inakeen markaasay tiri maya abo waa socdaa aniga jid baan maraya wax walbaa igu dhacahaya marka waxaan rabaa warqada meherkayga inaanan ka tegin ayaan doonayaa bay tiri berri wax kasta igu dhici kara waddan waxaan u socdaa bay tiri shisheeye ah oo maaragtay aan waddankayga ahayn oo waddanka waa ka tegayaa marka walaalo waxaan rabaa bay tiri warqadeeda meherka inaan qaato masaasa haye shiikhuna u diyaari buu yidhi shiikhii warqadeedii meherka u diyaariyey waxeedii oo dhan buu u diyaariyey hawsheedii oo dhan buu u tafatiray wuxuu yidhi hadda waa idinkaasa gabadhii warqadeedii waxeedii baa loo sameeyey warqadeedii waxeedii markii loo sameeyey waxay raacday ninkeedii bay raacda markaas ayadaa ninkeeda ay raacayso waxay wadataa warqadeedii meherkay wadataa warqadeedii nikaaxa way wadataa ninkeedu wuu qabaa hadda waxba kama qaldana bas ilaahay kuuma daraade ee gurigeedii bay iska tagtayoo safar baad sheegaysaaye qalbigeeda xataa ma gelin safar diinimadeeday iska qabsata si dhinkay ku dhegtay gurigeedii bay joogtay maxaa kaa galay bay tiri ciddii hadday ku su-aalaan oo ku yidhaahdaan problemka muxuu yahay nayaa urka yaa kaa dhalay nayaa waxaan maxay yihiina war aniga yaan laygu qaaqlayn anigu waa hayaa wiilka cunuga aabihiis waa hayaaye wiil buu noqon doonaa afkayga wiil buu soo qabtay laakiin wiil buu noqon doonaa bas waxaa la yidhi masaas baa haa haye haddeed say u taallay yaa gabadhii waxay keentay haddana matag hor leh caajis hor leh xanuun hor leh habartii oo shakiday hooyadii oo hadda waa hooye ay tiri naaheedhe hooyay maxaa kugu dhacay aafadan iyo arrintaan xagee kaaga timid maxay tiri hooyo warkii hore war soo dhaaf aniga qalad baan sameeyey qaladkaan sameeyey waxaa weeye nin baan qarsaday oo meherxaday haddeed wuuna joogaa hadda la xidida wuu joogaa ninka aniga gabar weligeeday nin mehersan jirtay uurna waa yeelan jirtay aniga uur baan yeeshay ninkaad sheegaysid xaggee jooga hooyo wuu joogaa ninkii wuu joogaa waa kuu keenayaa ada waa kaasa isagii bay u tagta waxay tiri walaalow aniga bixitaankii waa ka baaqday ilaa weji cusub bay la soo baxday oo kii uu ku ogaa aan ahayn walaalow aniga bixitaankii waa ka baaqday mana aan socdo hadda waxaa weeye waxaan rabaa haddee aniga adaa i qabo ninkaygii ah ilaa ninkan gabadhan waa ka baaraan degtay wadaadkii meheriyey sawir ka qaadatay iyo isagii isagoo wadaadkoo isa salaamaya sawir ka qaadatay warqad nikaax bay haysataa ilma kumuu inkiri karo meel walba fashil baa ka haysta ninkan markaasuu yidhi naa aniga ha igu soo qaldamin uurkaama dhalini ballantii maxaad uga baxday maxay taa sidaad igu soo mataqaanaa igu soo kala firaysay ma yeelayo anigu hawshaan aniga adigu waasaan ku ballan naa ismama naqaano uur wax la yihahdaa maba jiraba uurku muxuu yahay ma saasa waa yahay tiri gabadhii hooyadeeday u tagtay hooyadeed markay u tagtay waxay tiri hooyo ninkii aniga waji bedel baan ka arkay naa ninka maxaad farakuweysoo ka haysaa naa ninka maxaad fara ah oo ka haysaa naa ninka maxaad aqoonsi oo ka haysaa naa ninku hadduu ku nikaaxsaday warqadii nikaaxa ma haysaabay tiri warqadii nikaaxaan ku hayaabay tiri hooyo wadaadkii hebela sheekh hebela oo i nikaaxay oo magaalada oo dhan caan ka ah haddee waxay waad ujeedaa sawirkiisi waa kan labadoodo isa salaamahaya waa kan isagiyo isagoo garabka is haysta waa kan anigiyo meesha fadhiyo waa ikan warqadeydii meherka waa kan hadeed dhib ma jiro hooyo ha waswaasin masaas baa haa habartii fog bay tiriyo waxay tagtay wiilka cidoodii bay u tagtay waxay tiri asalaamu calaykum see tihiin cidayaho ma fiican tihiin baadi baa iga kii soo gashay baadida iga soo kiin gashay waxaan rabaa inaad ii baadi celisaan baan rabaa gabar baa guriga ii joogta gabadhuna waa xanuunsan tahay uur baan leeyahay tiri gabadhii haddii aan uurkii iyo qaabkii ay u yeelatay iyo ninka qaba iyo wixii aan weydiiyey wiilkii nuu noqday wiilka hebel wuu noqday wiilku weliba waa wiil aan garanayo hadda waxaa weeye hadda bal wiilkii la hadlo oo gabadhii iyo wiilkii hadda gabadhiina waa uur gabadhii iyo wiilkii waxaa la rabaa in laysu geeyo oo maaragtay laysu gurgeeyo oo gurigooda loo hagaajiyo oo haddee waa kaasa markaasaa liya ma hubtaa arrintaas oo ma arrintaasuu keenay oo inuu gabdhaha reerood inta rimiyo uu qariyo oo haddana mehersado oo meherxado uusan sheegin buu keenay waayahay bal isagii baan raadinaynaa isagii baa lasoo helay isagii markii lasoo helay baa layahay wiilow hawshaan ka warran baa layidhi
maya hawshaas aniga wax iquseeya ma ahan waxna igama gelin anigana mataqaanaa gabadhaas ima soo sheeganayso gabadhaas rag badan bay la socotaa haddee aniga iyo waxba igu soo maxaarsan oo aysan idhihin aniga wiilkaasaa ilma iga dhalay gabadha hadda waxa weeye rag badan bay la socotaa qofka hadduu naagtuna hadday rag badan la socoto inay nin kaliya sheegato waa qalad habartii waxay tiri gabadha hooyadeed ahayd aniga waxaan markhaati iyo marag lahayn waa iga dhintaan bay tiri gabadhaydu haddii aysan caddayn haysan wax wiilkaas loo haysta lama arko ma caddayn bay haysataa gabadhaha aya matus baa la yidhi rabbi kama caraysna meeshii baa la keenay mase horta qaybtii horta teleefoonkay siisay waxay tustay mataqaanaa filmadii ay ka duubtay sawiradii ay ka qaaday bay tustay waxay tiri waa kana asagiyo wadaadkii isa salaamahaya anigiyo lay meherinaya waa kan isagiyo meherkii salaantii laygu meherinahayay gacanta ugu jirta waa tan warqadaydii meherka waa kan inuu aniga xilligaan intuu uur ii yeelo aniga igu inkiro anigu xaq uma lihi haddii kale shareecada diinta islaamka iyo midda xisdigaaba waa la tiigsanaya cidii waxay yidhahdeen masaas ahaa maanday bal dhibkaan jooji wax dhibaato ah ma jiraan hadda anigu arrintaa kumaanaan talagelin hadda gabadha iyo wiilka aroos iyo waxaas looma dhigi kale dee hawl qarba aha loo sameeyey aqal yar baa loo sameeyey jief yar baa loo dhigay loo hagaajiyey maaragtay xoogaa yaroo maaragtay hawl ahaa loo farsameeyey qur-aan baa loo akriyay allabarigooda yarkaa loo dhigay waa kaasaa isagii iyo ayadii gurigaa la isu geeyey qabri iyo ninkiis lama kala qariyaa la yidhi meeshii baa sheeko lala kala baxay wuxuu yidhi walaale waadi qiyaantay waxay tiri khiyaanada aniga aan ku qiyaamay xaq bay ahayd balse waxaa xaq darro ahayd midaad adigu khiyaano ah oo igu samaysay anigana ilaahay baa karti iyo wuxuu isiiyey caqli badan iyo maskax badan marka sidaas awgeed saaxiib weelkaan bay tiri maantayto ilmahayga aabahoodna waa adiga meher xalaalana waa igu qabtaa haddaad fashil kuma jiro markaasuu yidhi hadda wixii ninkuu noqon lahaa raadi wixii nin ii noqon lahaa waa raadinayaa waa raadiyey waana helay waana adiga maxaad ka qabtaa anigu waxaan raadinayay bay tiri ninnimadaadu waxay iga dhacday bay tiri maalinkaad i tiri uurka la dabaalo balse hawshaan aan gaaray iyo guushaan aan gaaray iyo caddaymaha kan iyo markhaatiga kan iyo ninkaaxa kan iyo arooska kan yarkaa jimjaamta ah iyo waxa kan oo dhan waxaan ku gaaray tiri nasiibkayga iyo ilaahay garab iyo gacan qabtay haddana anigu guur kaama rabo ninnimana kaama rabo sharafna kaama rabo cunugayga caloosha iigu jira aabihiis baan rabay bay tiri inuu aabba la-aan usan dhicin ee aabbo u yeesho alxamdu alshukri aabba wuu leeyahay cidda iyadana kuma ceeboobin gabar weligeeday nin mehersan jirtay meherkaagiina kuma khasaarin ilaahay awlaad buu siiyey haddeed la dabaala caashaqa maantayta adaa dhib ku jiife anigu dhib kuma jiifo aboowe soo dhawow maxaan kaa haleeye maxaan kaa haleeye maalin maalmaha kamid ay factory markii asagii googoyn iyo wejidadab iyo mataqaanaa huruuf iyo hawlo kale ku aragtay bay inta factory asagoo maqan oo magaalada ku maqan bay gurigoodii markay timid bay tiri hooya iyo aaba ninkaan in la iga furaan rabaa naa ninka lagaa furi mahayaa laye horta ku dhal baa la yidhi asaga marka ugu horreysa asaga ku dhal markaad ku dhasho oo dhiigga iyo dheefta iyo dhibka uu kula qaybsado oo ku xaragaysto oo ku quruxsado maalinkaas gacanta ka taaga haddaad ka taaganaysa markaasay tiri masaas ahaa waaya gabadhii intuba inta ka dhaqsale bilaheedi waa u dhammaadeen way umushii markay gaartay 20 cisho oo ay isqaadatay xoogaa yaroo baanana ay ciddii wiilka dhashay ay u keeneen oo ay umushii ka bixiyeen umushii agteedii adigoo kala barkeedii gaarsiiyeen oo asagii ka aragtay santaag iyo magaciisii bay inta qaadatay oo labis jiq isku siisay oo asagii toosisay bay waxay tiri hebel awalba aad uma hurdinina sariirtu ku galgalanaye waxay tiri aboow ii qabo cunuga markay tiri oo maxaa doonanaysaa uu yidhi alaaban walaalow banaanka kasoo qabsanayaaye cunuga ii qabo wayga oynayaaye oy dhabta u saartay ay tiri fakatax waa kula jeclaa madax jugley meel xubnaad jiifto aboow cunuga adigu kugu macaan yahay bay tiri sariirta xuntaa korkeeda inaad jiiftid ood cunuga xunkaa ku haysidna aday kugu macaan tahay tiri anigu 5 boodaan ahay bay tiri mashibo aamus aabe aamus hooyo waa soo socotaa imaanaysaa ya adii ragga naaguhu ay ilmaha ku sabi jireen iyo asagu la istaagay bas markuu waayay maalinkii oo dhan yuu reerkoodu tagay cunugiibuu qaaday inta shukumaan iyo maryo iyo wax ku duuduubay iyo cunugii fag la yidhi ayrba hooyadii iyo wuxuu u geeyey iyo reerkoodii iyo meeshii aabihii iyo wixii markaasaa li war waa maxay cunuga umushaah ad wadaa
saliyo soo yiri cunuga umusha ah hooyadiisa iga tagtay hooyadiisa iga dhuumatay hooyadiisa igu mataqaana igu xumaysay hadda aniguna cunug mula ma hayn kara hooyo aabe cunugii haya oo gabdhaha u dhiibo oo hooyo mar adigu hay oo hooyo cunuga hala koriyo naagta lagu macelinaayay albaab kala baxbaa la yiri fiya ilkaha asagoo ku wada cunugii iyo ayada reerkoodii iyo ayadiyo gurigoodii joogto oo loo cilaamahayo oo loo qubeeyey oo halkaan seexan la yiri oo la magaciisiyey oo lagu faraxsan yahayba inayba cunuga asaga uga soo tagtay oo la shurshaaminahayo iyo isagoo cunugii ilkaha ku wada albaabka kala soo gala qalaw asagoo lale masaasa ha he allahu akbare hayrbu habarti salaam eed ma fiican tahay hooyo ma nabad baa khayr war maxay tahay tir waxaad wadaa soo yiri heblaaya maanta inta cunugii ii dhiibtay oo tir meeshaan dhubaan kasoo noqonayaa cunugii yarka ahay bay aayar iiga dhuumata haye masaasa ha namaandhe maxaad cunuga halkaana ilaa fadhidaaya namaandhe maxaad cunuga aad wiilka ugu dayacday hooyo cunuga waxaan ugu dayacay tir wiilku asagaa dhalay bay tiri cunuga nin kalena ma dhalin bay tiri inuu hayana wuu ku qasban yahay tiri intaan umusha ahaa isma habeenna igama nasin bay tiri waa nasanayaa bay tiri ha layga raalli ahaado masaasa ha wuxuu yidhi hooyo aabo aniga cunuga ha layga qabto cunuga waa lagaa qabanayaa cunuga hooyadiisaana siinayse cunugii waxaa lagaa rabaa inaad biilato cunugaaga inaad hagaagsato oo aad biilato oo masruufkiisa iyo aratirkiisa iyo dawadiisa iyo wixii u baahan yahay oo dhan aad la wareegtid ayaa lagaa rabaa waayahay waa yeelahayaa waxay tiri horta taas waa run bay tiri aniga cunugiisa hadduu biilanayo waa u haynayaa wax dhibaato ana kuma qaban laakiin hadda meesha uu taagan yahay kalama u dhaqaaqi karo meherkayga waxaa la yidhaahdo furitaankayga hay fura ninkaana maya waa furayaa buu yidhi hadday ilaa awalba afkay ka saarayde waa furayaa buu yidhi aniga gabadhaan hadday u baahan tahay laakiin waxaan rabaa buu yidhi cunugii in maaragtay waa furayaa buu yidhi aniga cunuga mataqaanaa wax dhibaato ana oo dhib ahna ma lahan laakiin bal cunuga layga qaabilo biilkiisii iyo wixiisiina waa diyaarinaya waa diyaar meeshii buu ku furay warqadeedii meherkaa furitaankaa looga qaaday cunugiisiina wuu biishay meeshii bay hawshii ku dhamaatay warqadeedii meherkana looga qaaday la iskuna macsalaameeyey cunugiisiina meeshii baa biil loogaga qoray hooyadiisa hadda cunugiina mataqaanaa gacanta u galay una ku biilay kuna dhaqaalaynayay hadda meeshaasay uga raysay laakiin isagu wuxuu rabay inuu bacaad ka cunsiyo yidhahdana la dabaalo uurkaaga iyo jacaylkaagaba mac salaama saxaabay intaasay sheekadu ku eg tahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu